waxaan u rabna kursiga intaanoo dhalinyaro governor way noqon karaan intaanoo gabdho governor way noqon karaan laakiin mas-uulka waxaan saarnay sultanate intay wax noo raadiyaan maalinta 28ka Thursday 20th October shirka waan joogo odayaashana halkay ka dhawaajiyeen Mr. Petrol iyo principal chief yes Haji Dayib waxaan Petrol u leeyahay waxa waaye maraan iskugu imaan xafiiska PC-ga Gaarisa asagoo intaan ka yar anina ka yar atiisan fariistay uu soo fiiriyay wuxuu abay nabad miya nabadan waxaa la dhahaa kibrit ya kibrida la dhahaa markaan anina waxaan abay ebo anina Petrol la dhahaa markaan aan kala fogaanin saad daraadada asagana kibrid anina Petrol iskugu yeerna anaga markaan arimaheena ma hagaagayin horena uma kacayin intaad qof naga dhirfino oo heebadan xagga ka jiro odayaalna uma tagi karno ama qabiilada kale uma tagi karna anagoo faay oo laba farood mu tagi karna ugaas wuna la dhashay walaalkan waay ani waa la fariistay ugaas waxaan dhageysan wiil walaalo intaan ani mari haddaan ku sheego faay dhaxdiis hadduu xisbiya waa ka bixi lahaa unfortunately faay is not a political party haddaad banaan u baxdid haddaa kadhib magacii ku wataa ee labadiina islama helaysiina tashada isla tashadaane ugaas ma fogo runtii I spoke with him many of you spoke with him markaan waayo wiilkaas anagaa dhalnay Governor Hassan weliye uu la dhashay anagoo dhan baa nala dhashay nin banaanka gabar hadday masirta intay aadaa cidooday aadaa soo ma waa la soo celiyaa hooyadaa soo celisa ama walaalkeedaa soo celiyo ugaasaan doonna aan soo celino keligiisna ma waa badan yahay gudaha la soo geliyo wuxuu tabanayna ha laga dhageysto boqorintu way maqleen laakiin annaga dadka qaar oo halkan joogo weli ma maqleen gabar waxay toogtaa waxaa shukaansada kunin hal bay kala baxdaa kursigan gabananimada waa hal koomis waa laba hal waa sooma arrinta iidaheed waxaan u dhiibinay dadkii madaxdaheed oo 14 ugaas iyo suldaankii aan u dhiibinay walaayada waa wala dhiibinay gabdhaheeni oo dhamaalay u yeereen waa in ku kabanaydeen dhalinyaradeen oo dhamaalay u yeereen waa in ku kabanaydeen odayaalkii culumowdiinki kulli waa loo yeeray annaka siyaasiyiinta oo hadda ku jirno kulli waa nolo wala yeeray MCA la hadeen MBA la hadeen kulli waa nolo wala yeeray waxaana ku dhahnay wax Allah wixii soo bixisay waa in ku kabana garna waxa la dhahay laba qaf kama qoshtis mid baayon la goy marka hadii aan nimanka ay ka hayaan talada u dhiibinayo madaxda hay hal nin hay noo soo bixiyeen halka ninka ayna waxaas noqday Xasan Wehliye annakana markii ka damba waxaan dhahnay ninka asaga hay ayaa la taaganahay ilaa daqiiqada ugu dambeys maxaa yeelay saddexdan wiil saddex oo wiil oo walaalo oo isla dhalatay oo aabbo isku dhalayaan saddexda iideed hadda halkan laga soo bixiyay inaan halkan aan la garab istaagna ayaan go'aansanay ninka walaalkeena saddexda qof oo istaagnay laba sidii leen sheegay faataxay horaan qaateen saddexda kala ninkan uu ku dhacday ma aha maanta ugaasina wuxuu yahay Dr. Xasan wuxuu yahay laakiin nasiibka ayaa ninkan ku dhacay sooma laakiin haddii qalaafkii iyo ninka walaalkeen aan xallinin nimankii kale walaalaheen anay kale aan u nuglaanin ninkaana aan ku caanashubanin sidii shalay faataxada loogu mar waxba noogaga aan waxay la tahay we'll extend an olive branch to our brother Ugas. He's a very eligible man, he's a very refined man, he's a good leader, but in any decision that is to be made ninka un bay talada ku dhaceen ninkaasna kama noogayna waa ku noqonaynaa walaaltinimo iyo talnimo aan ka raadinaynaa meeshii rixinkiisii iyo talkiisii ay ku faatax marteen
inuu ka soo qeyb noqdo ayaan leenahay midda dhacda nin sheega maxaa systemka badi hadduu ninkan ugaas shalay faataxada la qaatay oo maanta ninkii faay badbaada uu yahay haddana aas maanta aas u sabri lahay waxaa waaye dadkaas dhibkaas waxaa keenay dadka mas-uuliyiintaas alla ka dhigay waktiga asagahay oo shaygii xal u keeni lahay qof walba u keeni lahay ama dadkii kursi rabay xal u keeni lahay haddeenba xalka laga taleen dhibka soo ma aniga ninkaan walaalkeen waxaanu leenahay iyo dadka mas-uuliyiinta aniga naftigeeda iskama bixinaye meeshiin ka gaabanina waan ka raalahanaysiin wixii maanta aad naga rajaynaysin oo noo suurtagelina aad baa noogu raalaynaysin kaamil ilaha laga helaa laakiin waxaan leenahay aan ka fiirsanna nin allaahi ninkii qabiilka badbaadiya ama taladiisa iyo ummaddiisii meeshii ay ku caanashubteen taladiisa soo raaca in mas-uuliyiin ahaan aan ka tashanno oo dadka ayaga aan meelayna be it in the national government ama the county government asaga naftigeeda waa dowlad inaan ka tashanno unbaa wanaagsan soo ma waxaan joogay maalintii verdict la gaarayay Burundi aan joogay social media markii maalinta dambe fiili waxay gashay meesha ma la waashay mise maxaa dhacay tawana inta fakane ku kala press conference guestas ka subini governorgi la soo qaaday oo verdict yahay gaaras u fakana marka waxaan dhahay wajeerta ma yeela jaha wareertay maxaa ku dhacay cid faay maxaa ku dhacay laakiin siyaasadda iska saase maalintii 2017 ugaasiinta ay cusubnaayeen oo Sheekh Ibrahim aan iskugu tagnay beertiisa oo verdict la gaaray oo ugaas Sheekh la soo qaaday aniga applicant tarbajaanahay ninkan Idrisa la soo qaaday maalintaas dadka la soo qaaday farax ugaasiinta ay garabta taagneen annagii kalena la soo qaadin dudunaan ka bilaabay markaan hala yaabina ugaas walaalkay oratiis wili ku maqan yahan u manaya kolba soo qabo faataxadan uu maray ilaahay inuu soo qaboojiyo maxaa siyaasadda waa dhib badan tahay markaad wax filanaysa way iska dhib badan tahay laakiin waxaan u maleeyaa isagana waa qof oo iimaan leh uu soo laaban doonaan u maleeyaa markaan waxbana hala yaabin siyaasadda waa dhib badan tahay ani maxamed turkiya hal maalin aan isla fadhin or say ku dhacday say ahayd sin u leen maalintii ku dhamaatay mid kale xasan adina ilaahay ku barakeeyo baashu waa culays badan tahay siyaasadda waa dhib badan tahay uqdad badan tahay ninkii hataa kula jiro ka maqan waxaad qobi inaas ku ridahay waana kula jira qofka gow laakiin bartiisa ma arkaysid marka nin walba u sabar ani ugaasiinta iyo suldaanka raali ahaada markin dhageysti hadallo xun oo wanaagsaneen ka imaaday 2017 markii la soo qaaday ugaas dadkii koogi guri uu campaign ku gala siiyay xasan wiil adeer uu yahay oo kaalmo u siiyo lacag ka qaadayni dadkii wanaagaas ay isu qabeen adina wanaagan inaad dadku u qabtaa fiican soo saas ma mid kale waxaan la hadli rahaa professionals dadkan dad la dhalinyaro dad aan waalid u wada nahnaa meeshan joogo soo saas ma أول واحد يجرين إمبيج وحاكينا مقفيال قفناياش مقفيال هاكيني ما أنت إذا كان اللي مباهين مقفياش واكل عرين إنك سوقلوا كده وعرين مقفياش ما تشوقان ما تنساس مش موجودين نفاسك حتى وحيسكالة دالين يرادا from 49 downwards مركان سفرتان واحد سوبسينا في رنينا أنا Rashid Karshay, my good friend oo meeshan fadhiya ayaa la soo qaaday jagada MCA-ga Honorable Rashid Qasim MP Governor waxaa loo soo qaaday our brother ugaas nidaamkii maalintii ayada ahayd unba haddana maanta lagu socdaa inkastoo ani keligay baaloodka aan aadin haddana waxaan aaminsan yahay tolka nidaam oo hogaaminaya hadday jirin in talada ay halaabaysa aniga waxaan qabaa ninka ugaasiinta ay noo soo qaadeen oo walaalkeenne garab ayaas nooga baahan yahay waa inaan taageerno waa inaan support garayno and we have to deliver this seat waxaa kaloo la rabaa in la ogaada
in magaalada wajeer nala degan yahay. kursigan waxaa u halgami hayay Wajir West, Wajir North wax baa ka soo yaraan maqlahaynaa, Wajir Southna for the second time they are contesting for the same position. Ana waxay ila tahay khilaafka yar oo anaga naga dhaxeeya in si hoose aan u damino aan isu imaadna in the next 2 weeks reconciliation aan shaqo ka dhigano. The fact that all these people gathered here is an indication that we accepted the verdict. Marka ani waxay ila tahay meesha juhdiga in la saara ay tahay after this gathering is to look for our brother. Yesterday I attended his meeting. I was trying to tell him that you are loved too. You are a brother, you are welcome. Lakini when it comes to this matter, ma la kala qaybini karo. khudbadii shalay walaalkay ugaas kelmado yar oo facnina ka yara dareemay. ugaas horta waa nin shakhsi saan u aqaan, nin faacan oo qaymo leh waay, laakiin dhaqankii xoogoo Soomaalida Wajeer iyo asaga America ka imaaday waa isii rafaan waay, laakiin nin qaymo badan ma leh oo madax laga dhigin lahay. waa nin iimaan leh, waa nin wanaag doonay, laakiin ummadii aduu imaaday dhaqankeedii iyo asii dhaqankiisa isqaban waay. intaas kala xawaay ugaas xumaan ma qabo, anisaan aaminsanahay, laakiin dada ku dhex jiro oo yeelay oo u maleynaa inay run sheegayeen. marka ugaas maalinka xanuun badneed ma laha maalintii la reebay Maxamed Cabdi laga reebay, maalinka xanuun badan ma laha maalintan 7 biri kala qaadatay saasmeen inay intaan qaadato waxa way liidinaan madaxda maanta joogta ka muuqato. walaalkay Rashiid mas'uulka si fiican u qaado maadaama maanta MPga Axmed Baashir waa aragnay kelmadan markaan ugaas ka sharka dhawaaq waxa waaye wuxuu dhahay ninkii khilaafkeen inuu kursi hela waa cadda kelmad fiican meen nasiib lagu yaa qafko, laakiin khilaaf lagu guuleysto sanana masana waqti gaaban in lagu helo. marka faa'iidnimadan xooginayno 15 sano 2013 waxa la dhahay faa'iido football macallijir, laakiin waa isku fuuqsaday ma soo marka qabiilaan iska dhigno aan ismuujino ugaas ma naga fogo haddii aan helno odayaalkii dooni lahay. suldaanka iyo ugaasiinta shaqadii 15 biri waa ka nasateen, hadda soo gala madaxda maanta joogta iyo odayaalka gala. ugaas xal laga muwaynaysan aaminsanahay. mid kale oo dheeraadka markaan sheegay waxa waaye xasan wehliye ani saaxiib aan walaaban waan qaraaban waan ninka horta gabanimada soo qaaday dadkan badi ugu horeeyay 2 sano laga joogo malayna. laakiin runtii haddii aan anaga garab istaagno kuri waan haysanaa, haddii ay dhab naga tahay waxaan isku qancinina waan haysanaa, madaxtinimo aan isku qancinno oo na wala deeqda waan haysanaa, hadday lilaahi keen iyo hadday madaxdeeda hesho. intaas ay iga daardaarana annaka madaxdii haddaanan intaa soo jeeraan fadhiisanay arrimahan waa ka fadhiisanay. marka aan fadhiisanaynina sanadka hore iyo sanadkan markii liisa barbar dhiga waxaan maaragtay inay maaragtay sanadkan aan ka fiicanna ayaan u malaynayna. waxaan fadhiisanay Nairobi meeshaas Savana annaka iyo MPyaasha aabahay Cabdishakuur su'aasha aas weydii aan ku weydii 3 nin oo isla taagan. waxay dhaheen sanadkan ninka la soo bixiyay ayaan daadihinaynaa, muruna naga imaade ma markii faay taariikh 28 loo yeeray xasan wahliye anaana gacanta ku feeqay. waxaan dhahay xasanow annaka faay waa ku keenay, laakiin wixii maanta ka bilowda ninkii faay soo qaada anaana ka daba kacayna. bahdiina aad soo qaadeen khayr Allah siiyo oo reero farax markii intii maaragtay habeenkii asxab bari markii dadka la soo qaadi doona xasan waa u yeernaa annaka. waxaan ku dhahnay tolkaadi qaraabadaadi haddaan ballanta aan galnayna waxaa waaye ninka la soo qaada in aan gacanta qaban doono oon daadihin doono. xasan waa naga aqbalay in aas maanta haddii ama ugaas aas meeshaan fadhin lahay ama Dr. Xasan aas meeshaan fadhin lahay, xasan maanta meeshaan waa fadhin lahay. taas waxaa u sabab ah verdictidii hore markay soo baxday gacantaan qabanay
tii labaad oo hindalo maxamed cabdi lagu soo qaaday hindalo markii soo qaadana gacantaa qabanna waxaan rabnaa waxaa jira almuslimuuna tatakaafu dimaa'uhum ragga muslimiinta ah dhiiggooda waa sameyn marka la dhahaa qabiilkana sida ukulato waa wiil ka fiican ma lah faay markiin hor taagnaay oo dhaardhow aan hor taagnaay waxaan dhahay waryaada wiilishaan wiil aan ciddaan ahayn ma jiri ciddaan aan maaragtay kor arrintaan aan biri kor loo rarin waa cudur daata aniga tolka waxaan rabnaa markii maaragtay ayado badan oo qur-aan ka mid ah nabi maxamed ukulato waxaa la dhahay sabar adiga nabi maxamed ow sabar siday ululcasmigu u sabareen watawaasaw bisabri watawaasaw bilxaqi ata'muruuna naasa bilbiri watansawna anfusakum watadruuna alkitaab afalaa tacqiluun wastaciinuu bisabri wasalaad waxaan rabnaa maaragtay gar sida ciise sheega laba nin iskalama khusuusiis gar ninka un bay ka khusuusiinin cadaaladna waxaa waa sidin ku yeeli lahay iyeel waaye maaragtay waxaan leenahay faadime ibraahim waxay dhahday suldaankii ugaasiintiisa shaqadooda waa dhamaatay dhahday ma dhammaanin kow ma joogto waxaan rabnaa ugaasiinta iyo suldaanka inay nairobi imaano arrintaan aan hoos u daadihino tashanno tashi maaragtay macno lah cid maalin laan noqono oo iska dambaysa oo warka waa iska soo baxaa